beelaha xawaadle iyo jejeele ayaa maanta heshiis rasmi ah oo ay wada gaareen waxay uga dhawaaqeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Odayaasha dhaqanka, nabadoonnada, waxgaradka, aqoon-yahanada iyo dhalinyarada labada beel ku abtirsada ayaa goobjoog ka ahaa heshiiska beelaha maanta ay ku dhawaaqeen. Beesha xawaadle oo dhigtay gogasha shirka dib u heshiisiinta ah, nabadoonno iyo odayaal dhaqameed u hadlay beeshaasi ayaa sheegay in heshiiskan looga gol leeyahay dhammaynta madmadow yar oo beelaha ka dhex jiray, soo celinta dhaqanka wada noolaanshaha iyo xiriirkii soo jireenka ahaa ee labada beel u dhexeeyay. Waxayna u mahad celiyeen ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, ugaas Khaliif, ugaas Rooble oo ah ugaaska beesha xawaadle, iyo wawargeedi, wawar cilmi, wawar kutubo oo ah wawarka beesha jejeele, kuwa oo gundhig u ahaa wax badanna soo dharaandhiriyay heshiiskan rasmiga ah ee labada beel maanta ay wada gaareen. oo ay maanta isugu yimaadeen labada beelood sida beesha xawaadle iyo beesha jejeele. ilaahay baa ku mahadsanaan leenahay marka hore. marka xigta labada beelood waxgaradkoodii markay isu yimaadeen waxa ka soo baxday inay maanta god weyn qodaan. godkaas in lagu aaso waxa laala iyo wixii xumaan dhex maray jejeele iyo xawaadle maalintii ay dhasheen oo ilaahay ifka keenay dirisna uu ka dhigay. godkaas waxaa lagu ridi doonaa waxa laaliyo wixii dardaryo, dulmi, caabuq, cudur iyo calooliyow dhex maray. godkaasaa fataq lagu siina waana lagu aasaa. intaas labada beeloodaa isla heshay. waxaa kaloo labada beelood ay isla heleen inay iskaalmaystaan, walaal noqdaan, mid ahaadaan, muwaafaqo ahaadaan, si ilaahay dartiisa walaalnimo ku dheehanta. labada beelood waxyaabaha ka soo baxay tiirka biruhu tiirkaasoo waxa inay midnimo iyo muwaafaqo isla qaataan, inay wax allaaliyo wixii dulmi iyo caabuq ku dhex jiray iska saaraan, ay god ku ridaan. intaas ayaa saldhig u ahayd labada beelood waxyaabaha ay isla soo qaateen. waa ku faraxsannahay, waa soo dhowaynaynaa, waa ajiibaynaa, way isla qaadannay. khaasatan beesha xawaadlana boqolkiiba boqol ayay soo dhowaynaysaa arrintaas. waa qaadannay, waa ajiibnay, waa taariikhi. maanta waa taariikhi. labada beeloodoo isla dhalato walaalaha oo diriska ah. waxaan u malaynay jejeele dhulka marraba xawaadle, xawaadlana dhulka marraba jejeele. ilaahayna wuxuu wada makaaniyey hiiraan. webigaasaa noo dhexeeyo. hal taakoo dhula nagama rabaan, annaguna hal taakoo dhula kama rabno. waana isla dhalanay, dirisna waana. in marka aan wax allaaliyo wixii wanaaga iska kaalmaysanno, oon ilaahay dartii isu kaalmaysanno, oo aan walaal ahaanno, oo aan mid ahaanno, oon muwaafaqo ahaanno. intaas ayaa maanta lagu ballamay labada beelood. waa taariikhi, waa tiir bira, waa arrin aad iyo aad mug iyo miisaan u leh. waa soo dhowaynaynaa. wabilaahi tawfiiq. annagoo laba beelood ah oo beelaha ugu waaweyn ee gobolka Hiiraan dega ah, beesha xawaadle iyo beesha jejeele, ayagoo ka hadlayo danaha dhaxdooda ah ee waxay ciday ku dulminaan iyo ciday xumaan u gudbinaan aysan jirin, kaga wada hadlay danaha dhaxdooda ah oo ku gudban, kuna walaaloobay kulankan la isugu yimid oo aad iyo aad u sharafta badan leh. labadaas beelood waxay isla qaateen inay si walaalnimo oo mug iyo miisaan leh inay qalbiga isugu xaaraan, dhaxdooda wax alla wixii ku jiray oo xumaan ahay ay iska saaraan, kuna beddelaan wax alla wixii wanaag ah inay ku beddelaan, walaaloobaan, isqabsadaan labada gacmood, cadowgooda oo mid noqdo, samaantooduna ay mid noqoto. haddaan nahay arrintaas dhacday oo taariikhda ah oo labada beelood oo jejeele iyo xawaadle meeshaan ka dhacday, aad iyo aadaan ugu faraxsannahay. haddaan nahay dhanka xawaadle, walaalahayna waa soo dhowaynaynaa. wax alla waxay diidan yihiin aan diidannahay, wax alla waxay ogol yihiin aan ogolnahay. walaalayaal soo dhowaada. walaalnimada awalba waa naga dhaxaysay, waan iskarabsanaynay, soo jireen bay ahayd. waa naloo kala hadlay, been baa naloo kala dhex sheegay, waxbaa nala dhex dhigay oon run ahayn. wixiina waxaan ka daba tagnay oon ku beddelnay walaalnimo iyo wanaag iyo sidaan isku ahaa jirnay. aad iyo aad aad u mahadsantihiin. waan filaynay haddaan nahay beesha xawaadle
in aniga wax xumaana ayna dhaxdayna oo ni waa dareensanayn walaalaha in markaan isku nimidna waxay noo cadeeyeen inay haba yaraatee wax calooshooda noogu jiro xumaana inaysan jirin walaalnimaan isku urxaarnay wanaag iyo walaalnimo iyo wada qabsi iyo isku ujeedo iyo iskaalmaysi go'aankaasaan isla gaarnay dhinaca kale nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka ah beesha Jijele oo dhankooda warka qaatay ayaa soo dhaweeyay heshiiskan waxa ayna ballan qaadeen in dhankooda ay fulin doonaan heshiiskaasi mar labaad waxaan u mahadcelinayaa beesha beelweynta reer Xawaadle walaalahood beelweynta Jijele gogol u dhigay maanta ay goosha iskugu yimaadeen aad iyo aad ayagana ugu mahadcelinayaa gooshan qiimaha leh sharafta leh aad loo soo agaasimay oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa mahadcelin kadib anagoo ku hadlaya afka beesha Jijele kana mid ah nabadoon ka mid ah nabadoonnada beesha Jijele maanta waxa waaye wax alla wixii labada beelood ku dhex jiray xumaan ahaa hore macnaha u jiray haday bijireen maanta waa laga heshiiyay laga bilaabo maanta Xawaadle iyo Jijele waa midoobeen mid waayo wiilka Jijele wiil Xawaadle waayo wiilka Xawaadlena wiil Jijele waayo nabadoonka Xawaadle nabadoon Jijele waayo nabadoonka Jijele nabadoon Xawaadle waayo waxaan ugu faraxsanahay aad iyo aad hadana anaga beesha Jijele dhankayna waxaan ugu faraxsanahay sidii kalsoonida leh walaaltinimada loo wada hadlay si sareex waxa alla wixii dhexdooda ku jira ay ugu wada hadleen haddana macnaha sida is afgarad kale macnaha xagga macnaha waxa waaye liiso ajiibay liiso fahmay aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa dhankayna waa ku faraxsanahay hadana beesha Jijele soo dhawaada walaalayaalow waxa la waxaad qabtiina qabnaa isku dadaan nahay kala dad ma nihin isku mid aan nahay isku meel ay wax naga hayaan isku meel aan wada soconnaa barnaamijkaynu waa barnaamij dhaqan ma aha barnaamij siyaasadeed barnaamij siyaasadeed ma aha barnaamij dhaqan waayo sideeda saas in loo fahmaa la rabaa dhaqan labada dhaqan ka soo bilowday wabarkii Jijele iyo ugaaska Xawaadle ka soo bilowday anaga nagu imaaday ilaa hoos oo waxa way u sii galayno waxa way wada hadal dheer soo maray maanta waxaan ku soo gabagabayn is afgarad buuxa iskaashi buuxa labada beelooda waxa waaya midnaan isla socosho isla ogol waxay Xawaadle diidna waxa Jijele diido Xawaadle diido intaasaan maanta isku afgaranay soo dhawaada si ilaahay dartiisa u walaalownay waa sii socon doontaa waa socon jirtay beentii labadan biri jirtay meesha ka baxday awalba dib kale ma jirin anaga walaxaas hebel laga qabaa hebel walaxaas iga qabaan wiligeeda jiri jirtay waana jiri doontaa waxa way laba nimo habar isku dhashay macnaha wax kala gali jirtay wax kale ka weyn ma dhaxmarin aad iyo aad aan u soo dhawaa macnaha idin soo dhaweynayna aad iyo aad aan dhakayna ugu faraxsanahay anagoo ku hadlaya afka beesha Jijele aad iyo aad aan macnaha shirkaan aan raali ugu nahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay heshiis iskaashi buuxa wanaag iyo waxa waaye si dad islaam lagu aqoonay aan ku heshiinay sir ma aha dabaandaabiye ma aha dulun ma aha waxa waaye dulun u midoow ma aha kalsooni iyo dar ilaahay u midoownay waxa la wixii wanaagsan iska kaashanayna maanta oo ay tahay 30kii bishii 8 2021 goobta hadda aan joogno oo Bar Xasan Dhiifa waxa ku heshiiyay isku afgartay danahooda ka hadlay kana heshiiyay beesha Xawaadle iyo beesha Jijele waxay ku heshiiyeen wax kasta oo mugda ama madow ama kala tabasha ee jiray maanta faryaro bidacay ka baxeen ilaahay idinkiis sida u heshiinay ayayna ilaa qiyaam saac nooga socon doona insha Allah taala kumaana heshiinin inaan macnaha sheego dulun isku kaashan waxaan ku heshiinay inaan wanaag isku kaashan waxaan ku heshiinay wixii wanaagsan inaan garab isku siino wixii xun inaan bari ka noqono waxaan ka hadlayno waa dhaqanka labada beelood in bulshada labada beelood wanaag iyo marxaba hore u dhaxaysay in dib loo soo nooliyo wixii mugdi ah oo hore u jirina ay daaqada ka baxaan insha Allah taala sidaas waa midaan ku wada hadalnay kuna heshiinay bulshada macnaha deegaanka ama Soomaaliyeed intaas ay marqaati ka noqoto
waxaan ka raali ka nahay wax walba oo wanaaga oo gobolka dadka deegaanka dan u ah waana ka wada hadalnay waana ka heshiinay horaan loo soconay insha Allah taala waxaan kaloo si gaar ah ugu hambalyeynaya labada ugaas ee barnaamijkan ka soo shaqeysay iyo labada beelood oo hadda meeshaan ku kulmay aad baan ugu hambalyeynaya waa congratulation oo guriga aan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku hor u socda naga dhigo kuwa ismahadiya oo islaamnimo isku mahadiya oo dirisnimo isku mahadiya Allah naga dhigo ilaahay idinkiisa labada beelood kor Allah ka dhigo cadawgooda hoos Allah ka dhigo ilaahay waxaan ka barinay Allah waxaan ka barinay sida aan dhulka loo waynay Allah waan labadooda loo waynay saas Allah ka dhigo waxay leeyihiin taariikh soo jiraan hay leeyihiin taariikhda tii wanaag ku soo noqota Allah ka dhigo dulmiga Allah naga bixiyo قول له أنا مرات برجع تقول هتبقى دونك قول قربة قول الله نعطي الله داري إلهي إذا كيس مثل الله تبقى إلهي دافع حاتي له ما تقول إلهي لقرب حاتي له بقى المرعدين يسكو إلهي يسكو كذا حاتي له هذا بقى عكت كوسي إلهي كذي حاتي بلد كيف بلدان إلهي كذي حاتي له تبقى إن الله سكون عفسي عفمان الله نصير وعك يا بين الله لقليا